moogtahay in shimbirtan ay tahay shimbirta ugu la yaabka badan adduunka ee aad arki doonto weliga. shimbirtan waxaa lagu magacaabaa kiwi, waana mid ka mid ah shimbiraha aan duulin ee dhulka socda, waxaana laga helaa badanka waddanka New Zealand. marka aad fiiriso muuqaalkooda guud waa shimbir aad u yar, balse ukunta ay dhigtaa waa mid aad u weyn oo yaab badan. kiwi waxaa lagu tiriyaa shimbiraha dhala ukumaha ugu waaweyn dunida, sababtoo ah ukunta ay dhigto waxay ka badan tahay 25% culayska jidhkeeda. markay qaado ukunta waxay ku noqotaa mid culaysa, waxaana ku adkaaday inay si fiican u cunto cuntada iyo xitaa inay si fudud u neefsato, maadaama ukuntu ay cadaadis saarayso wadnaha, caloosha iyo xubnaha kale ee gudaha. waxaa kale oo la yaab leh in ukunta ay dhasho shimbirtan loo yaqaano kiwidu ay ku dhawaato cabir ahaan ambaba ay leeg tahay shimbirta loo yaqaano goronyada ukunta ay dhasho. soo la yaab maaha daawade, inkasta oo jidhkeedu aad u yar yahay, arrintan ayaa noqotay mid ka yaabisa dadyaabo badan oo ku nool daafaha dunida. ugu dambeyntii tani waa tusaale ka mid ah abuurka Ilaahay iyo sida Eebba uu abuuray makhluuqaadka kala duwan ee la yaabka leh. haddaba daawade, adiga su'aal haddii aan ku weydiiyo, shimbirtan hore ma aragtay? se magacee ayaad u taqaanaa? qaybta kommentiga hoose ee ugu sheeg. ha iloobin inaad follow noo saarto YouTube iyo Facebook profile-ka saaranna aad subscribe dhahdo.